أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal waxaad iga doontaan salaanta islaamka xaqa kadib walaalyaal codkan waa muhiim wuxuu muhiim u yahay ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen gumaysi midoobay ku hoos jirta sababtu waxay tahay waxaan soo gudbinayaa aragtiyo saliim ah iyo xogo lagama maarmaan ah ummadaas u baahan tahay marka codkan waxaan rabaa inaan laba qodob inaan soo qaato waxaa jirta aragti in badan lagu mashquulsan yahay oo ah hal ku meel gaar ah wax la yiraahdo oo ay ka maaransiin weyday culayska ummadaas ku dhacday inay noqoto ajandahoodu mid ku meel gaar ah qodobka kale waa hal waara halka waara haddaad ummadaas aad aragtidaas soo gudbiso ka doodaan boqolkiiba boqol way kaaya markhaati ka ahayaan in ummadaas Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen ay u baahan tahay hal waara waxaa jira marka waa maxay marka caqabadaha ummadan haysta waxaas lagama maarmaan marka in la kala saaro labadaas aragtiyood ee la rabo in isla shanqaadaan isma shanqaadayaan laba malaha walaalayaal adduunyada waxyaabo fara badan baa ku soo kordhay beentii runtii baa la kala garan laayahay waxyaabo kasta oo faa'iido lehna dhinaca kale khasaaray leeyihiin oo kaba soo qaad hadda kombiyuutaradan iyo aragtidan casriga ah ee aydan iyo ChatGPT iyo horumarkan la gaadhay haddana waxyeello leeyahay oo wuxuu gaadhay heer maanta runtii iyo beentii la kala garan laayahay sidaas oo kale ayaan tusaalahan waxaan u soo qaatay ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen waxay ku wareersan tahay way qasantay maxaan dhahnaa marka malaria siyaasadeed baa ummadda haysata yani malaariyada waa xanuunada ugu xun waxaan dhihi karaa kanaacada xitaa wadankii waa lagu beeray hadda magaalooyin waxaa jiray magaalooyinka ugu caafimaad badan ahaan jiray oo maanta ay kanaaca qabsatay oo ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen dhulkeedii ah marka xaaladda ummaddu ku jirto waa mid malaria aan dhihi karo haddana maxaan dhihi karaa labadoodii lugood ay hore u wada socotay waxaad moodaa inay midna dib u socoto midna hore u socoto waa maandhaafka ka jira waxaad dhici kartaa dhagaha aynu leenahay hal cod bay wada maqli jireen maanta dhagiba waxbay maqlaysaa waxyaabo kala duwan indhaheennu hal aragti bay arki jireen dhowr aragtiyoodoo kala duwan bay waliba si gaar ah u shaqaynaysaa waa waxay adduunyada maanta ku soo kordhay taa waxaan ka wadnaa culimadii ayaa ugu khatarsan kuwa astaamaha culimada lahaaba ugu khatarsan kuwa magaca ururada lahaaba ugu khatarsan aan marka soo dhaadhacno faaladan waxaan ka wadaa marka walaalayaal gumaysigu wuxuu wadaa saacad daqiiqad sakin maalin sanad wuxuu wadayaa aragti iyo ajandayaal ku hafiya waa mid la soo qorsheeyay 100 sano weey waa mid caalami ah waa mid iskaashi la leh saddexda jireed ee adduunyada maanta ka socda si toos ah u tilmaamayna Afrika waa jireed Ethiopia waxa la yiraahdo yaa ka socda oo waxa ay kadeedayaan ugu horeysa waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan waad ogtiin ajandaha kale ee Yuhuudda Israa'iil ee maanta Soomaali inuu kadeedo raba lafteeda oo saacadaha Soomaali waxa dhex socda waad aragtaan ajandaha kalena waa jireed America waad aragtaan adduunyada dhul boob buu noqday shidaal boob madaxweynayaashii mandateska adduunyada ka haystay baa intii la qafaasho aad aragtaan in maanta la kadeedayo xaaladdu way isbedeshay arrintaas marka waxa lagama maarmaan marka gumaysigu wuxuu sameeyay media
hadda nidaamkan wakiilka gumaysigu kii ka horreysay waxaa shaqaynaya wax la yidhaahdo ESTV baa u shaqaynaya waxaa jiray tiiman fanaaniin oo u dhaanteeya kuwaasoo laga luunjeexay abaabulkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya oo waxay jabhaddu la timaado oo dhan wixii lidka ku ahaa baa la samaynayay aan soo dhaadhacna marka hadda waxaa bilowday saxaafado aan dhammaanaynin hadda waxaa jira waxaa show hadda waxaan arkayay wiil dhalinyaro oo activista inuu mar walba soo qaadanayo waraysiyo kuwa khatar ummadda ku ah waxaan arkaynaa inay social media kale oo axmaaradu leedahay inay waraysanayaan wakiilka gumaysiga ogeydeen inay ilay ahaa ummaddii kadeeday maanta macnihii haddii la yidhaahdo hal la xukumo ay adag tahay xukunkiisu wuxuu noqonayo intaas oo xabsiga ku guraya intaas xasuuqaya intaasoo dhan kadeedaya waad la socotaan social mediaha codadka kala duwan ee dadkii uu dulmay ee uu bahdilay ee kadeeday odayaashii uu bahdilay baa nool maanta ya halgamayaashii uu waddada ku soo jiiday baa nool meedkoodii ya waa kii ku fahantamahaya deeq labadaasaan soo qaadanaynaa nafti hore allah u naxariistee sheekh deeq iyo nafti hore allah u naxariistee doctor maxamed siraad doolaal waa ninkii ku fahantamahayey lama arag iyo lama maqal cid ku faq kaasi sifahaasu leeyahay waxaa yaab leh marka inay noqdaan dameer iyo labadiisii dhagood kuwa maanta u muuqda inay labeynta ummadda yihiin tusaale waxaan soo qaadanaynaa waxaa jira waraysiyo lala yeelanayo guddoomiyihii hore al-itixaad haddaan tusaale soo qaadno si toosaan u sheegaynaa waa khasab maadaama isagu maseer ummadeed uu ka hadlayo oo xitaa weliba onalaf uu ka hadlay waa khasab in laga hadlo ya wuu soo farageliyey wuu ka hadlay onalaf wuu ka hadlay marka waa khasab inay ummadda loo xog warramo ya walaalayaal bal in yar u fiirsada waxaa jira aragti shakhsigu iska dhaadhicin karo ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeenya waxay soo yeelan jirtay halgamo kala duwan oo gobonnimo doon dhammaantood waa la afxidhi jiray waraysigiisa wuxuu ku soo daray ma dhicin in ummadda gumaysi xilliga xil islaasiga ka horba in lala hadlo oo la maqlo meesha ayada ah waxaan ka dheregsannahay oo inu ognahay ururkan al-itixaad la dhihi jiray isaga laftiisii waraysiyo fara badan uu dhiibay ayuu cadaynayaa inuu xidhiir la lahaa waddamo carbeed sidaas awgeedna uu gudaha Soomaali galbeed Soomaalida soo galay inay dagaal ku qaadeen culimadii iyo dhaqankii hore meesha ayada waxaan sheegayaa ajendayaashii xambaarsanaayeen magacaas waan necbahay yani inaan mar badan aan soo celceliyay si aan loo aragti hoose loo arkin si aan loogu arkin inaan ummaddu inay midowdo inay wax noqoto inay intay ka midaysan tahay ka wada shaqayso waa lagama maarmaan oo hadda kuwa aan tilmaamahayo waxyaabo fara badan baa laga yaabaa inaan ka midaysanno inaan ka midowno ay tahay sida awgeed waxaa isweydiin leh marka in uu farageliyo ajendayaashii masiiriga ahaa ee ummaddu leedahay وعيا أجندياش عم يصير جي واكيد جفت ودنا حرينته وقاعدين وحالك كعدي أو هذا الذي ورئيسي سكتشري إنه سوه يي نتيجوين عالمي أو لجو أبال مريو يا أبال مرني جميسي بدو إثيوبيا أبال مرني وكيل كجميسي إثيوبيا إلي أيا بالله كواب ذهب كواب لو دياريا لجو أبال مري السؤال سودي نمرك هل نيجي رقفك هداد رفتان إن برتان صاحبك برت فمرك من نقولها يو بربرنا وجدونتي هل جنتي جوين مدون بيرتي ومدة هيد حرية هيد أيو كنا اللون يا وكفانا هيا أيو صعب حري وسؤال الكوبا سؤال اللي بعض وحيت هاي حتى قالوا جرونه عرفتي بعد كجابتي عرفتي مركي كجابتي فلوس كده عدعية أردن
intii badneed way u hirgaleen maxay ugu hirgaleen hogaankii aragtida gaabnaa 2018 wixii ka horreeyay ayaa waxay soo dhaweeyeen xiriirkii u kala dabqaadahayay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya korneelo tigree ah iyo inay loo calankiisu sii dhacayo shirqooladuna waxaan ugu magac daraynaa Nairobi iyo Dubai wuu ahaa aragtida noocaas ahayd marka waxay keentay in jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya gumaysi madow u gashay waxa ka socdana waa la socotaan arrinta kale waxay tahay wuxuu ku tilmaamayaa markii la weydiiyey su'aal la weydiiyey la yidhi sideeba wakiilkii gumaysiga in ilay iyo adigu aad mataana u tihiin sababta aad maaragtay aad mataanaha u tihiin isku wax uga shaqaynayseen maxay tahay sababta lagu soo abaalmariyay maxay tahay sababta wada hadalka iyo inay ka tanaasusho ururka al-ittixaad ama UWS revolution halgankeedii hubaysnaa muxuu yahay halkii hubaysnaana wax ay sii wadeen ma jirine in yar soo qaadatay xiriir la lahayd carabta ayaa gudihii soo gashay oo arrinta noocaas ayaa ana idin ifinahaye xilliga halooyo annaka oo marka gumaysi madooba Ethiopia TPLF EPRDF ay jabhadda ay xaruntii ku weerartay annaka inaan magaalooyinkii ka baxnay waxaan xusuustaa meel yaha sanxodalle oo ceel xaar dusheeda gobolka qorraxay dushiisa ayaa nafti hore alif le allah u naxariistee iyo aniga tiim aan wadano ayaa waxaanu sameynaynay waxaa jira dagaal la dhihi jiray mato aandi oo birqod ahaa wixii ka dambeeyey inaan gumaysi madooba Ethiopia ku bilowno dhaqdhaqaaq xilliga iyada ah ciidamada al-ittixaad oo awr wata oo halooya ka soo cararay ayaa meesha sanxodalle la yiraahdo suunin waxaan ka xusuustaa allah u naxariistay nin qorane la dhihi jiray hadda uu shiiday ayaa ciidamada la socday kadibna waxaan ka qaadanay rasaas fara badan oo haysteen meesha ayada waxaan dhahayaa marka laba arrimood ayuu ahaa al-ittixaad waxa loo keenay hadda waxaan aaminsanahay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhaqdhaqaaqayo unugyada dhaqdhaqaaqa ee ka dhex samaysan gudaha Soomaaliya inay interfere siyaasadda arrimaha dibadeed ilaahay waliba aan dhihi karo imaaraadka iyo Dubai ayaa iskale dhaqdhaqaaqyadaas oo dhan sidaas oo kale marka waxaan dhihi karaa unugan al-ittixaad xilligii gudaha Soomaalida ogaadaya la keenay malasa Zeenaawi waa keenay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxay ahayd mid shacabka ka dhex dhalatay aragtida noocaas lama soo dhaweyn habeen madow baa iyo calanka xafiiska laga soo suray yaa suray malasa Zeenaawi waa suray waxaa jira marka unugyo khatar ah marka maanta waxaan dhihi karaa wakiilkaas ururka al-ittixaad maanta isku sharaxaya xisbi siyaasi ah baan nahay maanta ay dawladda Ethiopia leedahay ururka BB-na uu leeyahay 23 kursi ayaa waxaan siinay qoomiyadda Soomaaliyeed oo ay iyaguna ay leeyihiin caasimadda ayaa 23 kursi la siiyey meesha waxaan idin sheegay hadduu wakiilka gumaysigu oo hal ahaan jiray 23 wakiil gumaysi oo khatar ayaa inoo samaynayaa weey waa jawaabta rasmiga ee aan ka bixinay arrinta nooca marka halku meel gaara haddaad adigu u aragtid waxaa tahay wuxuu noqonayaa marka shakhsiyaadka ay kuwa la mid ah arrimaha noocaas oo looleynaya kow inaad ahayd buligii khatarta ah ee halgankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya godka ku riday waxaan meesha soo bandhigaynaa marka haddii ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya beertii ay lahayd ahayd beertuna ay ka soo bilaabatay ilaa ay xilli la goosanayo ahaa waxaan dhihi karaa sanadii 2001 sanadii 2003 halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya wuu bislaaday waana la aqoonsaday midhihii baana la goosan lahaa xilliga nooca ahayd ayaa ururkaas al-ittixaad UWSLF wuxuu noqday khatarta ugu weyn ee shirqoolay halganka taana waxaan dhihi karaa aragtigaamidii hogaankii jabhadda ee markii ugu dambeysay gumaysiga geliyay ee maanta aad aragtaan marxaladda u maraysaan walaalayaal codkan wuu dheeraaday taxanaha la socda waxaan meesha leeyahay marka maxaa mataaneeyay wakiilkii gumaysiga ilay iyo gudoomiyihii al-ittixaad WSLF la baxay waxa mataaneeyay labadoodaasi jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ay culays ugu hayeen meesha waxaan soo qaadanaynaa
in yar baan rabaa marka inaan ku soo gebagabay waxaa jirtay xilli culimada Soomaaliyeed Nairobi wax laga weydiiyey oo shacabku Soomaaliyeed ay weydiiyeen culimo waaweyn oo Allah u naxariistay Sheekh Nuure Baaruun ka mid ahaa in halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaaday inuu xaq yahay in la taageeri karo in laga mid noqon karo ay ummad badan oo Soomaaliyeed ay sheekha weydiiyeen sheekha culimada Allah u naxariistay oo haliyay ahaa oo maanta inaga soo hooseeya wuxuu si toos ah u qeexay in halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaaday uu yahay xaq oo gumaysi madowga Itoobiya ay tahay in lala dagaalamo lana iska celiyo balse dhanka kale culimo kale oo waaweyn oo maanta aana meeshan aanu kaba sheegahay inay si toos ah u sheegeen inuu halgankooda xaqay kuwaasina uu diyaaradaha ay Nairobi inuu u soo diraayo in ilaa wakiilka gumaysi sida awgeed waxaa jira waxyaabo fara badan oo inaga qarsoon waxaan ku soo gabagabeynayaa marka shakhsigu ma isagoo is og inuu dadka dhibaateeyo oo gumaysiga ka mid noqdo ayuu ku khatar badan yahay mise isagoo is ogeyn inuu gumaysiga u shaqeeyo uu khatar ku yahay waxa laga yaabaa xubno fara badan ama muwaadiniin ummadda Soomaaliyeed oo ku isgaranayeen gumaysiga u shaqeynay kuwaas way sahlan laakiin kuwa og ee gumaysiga u shaqeynaya ee uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee UWSLF ee maantana leh Itoobiya ayaan siyaasadeedan ka mid noqonaya taana wax macna leh in sameeynaynin aan dhihi kara marka kuwa maanta u cararaya aragtida gumaysiga ee xisbi siyaasi aan noqonayna ummadii baan wax u qabanayna waxay noqon doonaan baa waxay tahay dana gaar ah bay u cararayaan inay mushaar yeeshaan waxaa jira wax la yiraahdo gumaysi madowga Itoobiya lacagta cashuurta ay baadda ee dadka laga soo ururiyo jimrigada laga soo ururiyo maalka laga qaatay baa waxa loo qaybiyaa intooda la leeyahay madax baadiin hal baabuur waa loo iibiyaa wax la BT cash oo la siiyo 3 biloodna mar qasnada loogu shubaa sida awgeed dan gaar nin walba taa waxa ku dhaam lahayd marka halgankii gobonimo doonay ummadda lahayd hoos u dhacay kor baa loo soo qaadi doonaa inta shacab iska noqotid oo culimo noqotid oo dadkaaga baraarujisid noloshaada intii ka hadhayna saan noqotid baa u dhaam lahayd qaar badan oo leh marka waxaan ka mid noqonaynaa ajandayaasha gumaysi madowga Itoobiya walaal codkan uu dheer yahay taxanaha la socda codkan gaarka ah ee ummadda in loo soo gudbiyo iyo waxa sababaya waxay tahay saxaafadaha gumaysiga madowga Itoobiya samaysanayaan ee ajandayaashiisa ayaa waxa laga maarmaan in la helo aragti saliima ummadda u soo gudbisa walaalayaal la socod wanaagsan insha Allah ummadda Soomaali galbeed ajandaheedii iyo jabhadeeda wadaniga xoreynta ogaaday iyo tubteedii saacada ku soo celinaysa waana dhagax madow. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.